dunida tan waxaa jira isbedelo dhinaca nolosha ah oo in dhaweydba aad looga dareemayay waliba qaybihii ugu dambeeyay waxaa la arkayay shakhsiyaadka madaxa bannaan ee xirfadaha kala duwan leh inay sameynayaan hal abuur iyo isku tashi iyaga u gaar ah. ujeedada ugu weyn waxay ka dhigan tahay in ay ka madax bannaanaadaan inay noqdaan shaqaale una shaqeeya hay-ado dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay. si kale waxaynu oran karnaa dunida tan waxaa ku soo badanaya shakhsiyaadka sida madaxa bannaan u shaqaysanaya freelance, waxaana tani ay muujinaysaa isku tashi iyo sidoo kale dabcan go'aanka gaaris mustaqbalka oo dhawaanahan aad u xoogeysanaya. muuqaalkeena maanta weeye waxaan hay Idruus Maxamuud Iibaan, halka kan waa Somali Freedom. ku soo dhawaada. waxaa dunida si xawli ah ugu soo badanaya in dadka shaqaalaha ahi ay ka tagaan shaqooyinka shirkadaha iyo hay-adaha dowladda ama kuwa madax bannaan iyaga oo ka doorbidaya inay si iskood ama si madax bannaan ugu shaqaystaan xirfadaha kala duwan ee ay leeyihiin. sahmin ay samaysay hay-adda Edelman Intelligence ee Mareykanka oo kaashanaysa madasha Upwork ayaa daahfurtay in kala badh dadka sida madaxa bannaan u shaqaysta ay haystaan shahaadooyin jaamacadeed. waxaase ay hoosta ka xariiqday in shaqada madaxa bannaani aanay shahaado sare u baahnayn sida shaqada rasmiga ah, balse ay u baahan tahay xirfad in uu qofku leeyahay. wanaaga ay shaqada madaxa bannaani qofka u leedahay waxaa ka mid ah inay aqoontiisa iyo waay aragnimadiisa u korodho si aani u kordhin qofka shaqaalaha ah. waxaa sababaha ka mid ah qofka suuqa xorta ka shaqaysta oo ku qasban inuu joogto u dhiso xirfadiisa iyo aqoontiisa shaqo si aan loogaga adkaan loolanka adag ee suuqa shaqooyinka madaxa bannaan. halka qofka shaqada rasmiga haya aanu ku dadaalin aqoon kororsi marka laga reebo tababarada kooban ee shaqada qasab kaga dhigayso. arrintan ayaa sababtay sida ay sahmintu xustay in dadka sida madax bannaan u shaqaysta ay boqolkiiba 61 leeyihiin xirfado 2 ama 3 ah oo ay ku xoogsadaan. sahmintan oo soo baxday 2019 kororka tirada shaqaalaha sida madaxa bannaan u shaqaysta waxa ay tusaale u soo qaadatay dalka Mareykanka oo ay iftiimisay in 57 milyan oo Mareykan ahi ay si iskood ama si madax bannaan u shaqaystaan. tiradaasi ayaa la saadaalinayaa inay sanadka dabcan 2027 ka gaadho in kala badh dadka Mareykanka ah ee shaqaalaha ay si iskood si madax bannaan u shaqaysan doonaan, taasoo xogta hadda soo baxday ay warinayso. dhinaca kalena dakhliga dalka ka soo gala dadka sida madaxa bannaan u shaqaysta ayaa waxay warbixintu ku sheegtay 1 trilyan oo dollar sanadkii, taas oo boqolkiiba 5 ka noqonaysa wax soo saarka gudaha. markay sidaas tahayna waxa ay ka dhaqaale badatay suuqyo Mareykanka ah oo muhiim ah sida suuqa dhismaha iyo gaadiidka, waxa aanay in yar ka hooseysa suuqa xogta information. waxaa xiiso leh in boqolkiiba 51 dadka sida madaxa bannaan u shaqaysta ay sheegeen in aanay marnaba diyaar u ahayn inay qabtaan shaqo rasmi ah si kasta oo mushaarka iyo dheefta kale ee loo ballan qaada u badan tahay. sababta ugu badinna waa iyaga oo shaqadan madaxa bannaan u arka inay tahay mid nolosha qofka hadba sida ku habboon ula jaanqaadi karaysa. qofka oo wadi kara isaga oo danihiisa wata iyo in meel kasta uu tago uu shaqadiisa kasii wadan karo waa midda ugu muhiimsan ee muujinaysa in dadku inta badan ay danaynayaan inay si gaar ah ama gooni ah ama madax bannaan ay u shaqaystaan, tii ay beddelkeed dabcan u noqon lahaayeen shaqaale ka howlgala hay-ado kala duwan, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud. tani dadku waxay muujinaysaa inaysan jirin qanaaco iyo ku tiirsanaan qoto dheer oo dhanka shaqaalanimada ah, balse marka xirfadda iyo shakhsiyadda iyo hal abuur wehelisa ay kulmaanna ay dabcan ku hogaamin karto baraare nololeed iyo horumar dhanka nolosha ah. waana fursadda ugu muhiimsan ee hagi karta sidoo kalena gaarsiin karta nolosha meesha ay la rabaan naftooda inay gaarsiiyaan. xogta tan waxa ay muujinaysaa dhinaca kale marka aynu eegno in dabcan sanadka kan iyo sanadaha soo socduba ay sii kordhi karaan tirada dadka sida madaxa bannaan u shaqaysanaya. dadka qaybtood oo waramay waxa ay dareenkooda ugu badan siinayaan
fursadda ah in si shaqsi ah loo shaqaysto beddelkii hay-ado gaara iyo kuwa guud loola shaqaysan lahaa. waxay qiimeynayaan fursadda xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale sida mar kastaba ay ula jaan qaadi karaan tagtada iyo timaadada. muuqaalkeennii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay dunida sida ay ugu soo badanayso dadka xirfadaha gaarka leh ee sida madaxa bannaan u shaqaysanaya. waxaan hay Idruus Imaan, waxaad kala socoteen Somali Freedom. Fuaad Cabdirasaaq Guray ayaa dhanka muuqaal dubista iga caawiyay, aniga isagoo wada jira waxaanu idin leenahay ismaqal aragti dambe oo xiiso leh.